hubkii ugu horreeyay ee laser ah awoodna u leh inuu soo rido diyaaradaha duuliye la'aanta. Shirkadda Rocketsan ee warshadaynta hubka ayaa shaaca ka qaaday hub laser oo lagu ogaanayo diyaaradaha duuliye la'aanta isla markaana lagu jahawareerinayo raadeeradooda casriga. Turkiga ayaa ku hormariyay markii u horreysay awoodo maxalli ah. nidaamkan cusub wuxuu awood u leeyahay inuu shalal ku rido diyaaradaha duuliye la'aanta kadibna ay sahlanaato soo ridideeda. hubkan cusub ayaa ku shaqaynaya nidaam tamar ah markaana u suurta gelinaya saamaynta bartilmaameedka iyadoo aanan la adeegsan gantaal. shirkadda Rocketsan ayaa markii ugu horreysay waxay ku soo bandhigtay carwada wax soo saarka ee hubka. sidoo kale shirkadda ayaa faafisay muuqaalkii ugu horreeyay ee tijaabooyinkii ay ku samaysay dhinaca beegsiga diyaaradaha duuliye la'aanta ee weerar ama basaasnimo. guul ayayna ku soo idlaatay. nidaamkan waxa uu leeyahay awood burburin ah oo laser ah iyo mid kaloo jahawareerin ah iyadoo la adeegsanaya tamar koronto oo magnad ah. tashwiishna kaga furi karo fogaan dhan 4 kiiloomitir kadibna ka takhalusi karo bartilmaameedka. hubkan waa mid ku habboon ilaalinta unugyada militari ee degan ama kuwa socdo, saldhigyada militari, xaafadaha deegaan, dekadaha, maraakiibta iyo goobaha kale oo xasaasiga ah.